wasiirka xafiiska xirfadaha iyo shaqo abuurka mudane Xuseen Geed Axmed oo ay wehelinayaan injineero ka socday xafiisyada ay bohdaagta yihiin iyo maamulka degmada Awbare ayaa soo kormeeray dhismaha kuliyadda xirfadaha kala duwan ee Awbare ee dhismaheedu socdo. Ujeedada kormeerkan ayaa ahayd ka mid dhalinta qorshaha xukuumadda ee sanadkan 2014 in hore loo dhameystiro isla markaana la shaqo geliyo dhammaan mashaariicaha dhismaha ee socda ayaa waxaa loogu kurgelayay halka ay mariso dhismaha kuliyadda xirfadaha ee Awbare. Injineerada iyo mas'uuliyiinta kormeerka sameynayay ayaa si qoto dheer u indheeyay qaybaha kala duwan ee dhismaha kuliyaddan iyadoo si gaar ah loogu kurgelayay in dhismuhu ka socdo naqshadii loogu talagalay iyo qorshihii loogu talagalay iyo guud ahaanba qorshaha halka uu marayo mashruucan. Gabagabadii kormeerkan ayaa waxaa warbixin kooban naga siiyay wasiirka xafiiska xirfadaha iyo shaqo abuurka mudane Xuseen Geed Axmed. maanta waxaan ku sugannahay dhismaha TVET-ka ee Awbare oo bariyahanba taagnaa caqabada ka jireen. kuliyaddan waxaa gacanta ku haya laba qandaraaslayaal ama laba contractor. labada shirkadood ayaanu markaa isla soconay. labadii contractor ama labadii shirkadood manageraduna way nala socdaan ama owneriski ayaga laftigooduna kolley wixii caqabadaha jira waanu isla fiirinaynay. waxaana nagu helinay nala socda injineero khaas ah oo xafiiska hawlaha guud ka soo qaadanay oo eegaya oo si qoto dheer u fiirinaya dhibaatooyinka dhinacay ka jiraan si loo ogaado dhibaatooyinka jira kadibna xalkooda loo gudbo. marka in badan baan ilaa saay ku jirnay waanu indheynay wax fara badan baanu aragnay. reportiga iyo xogteeda dhameystirana marka reportka la qoray noqon doontaa. hadda ahaanse wixii aynu eegaynay assessmentiga ama daraasaadka aan sameeynay si fiican buu noogu qabsoomay. marka daraasaadka dhameystirnana report dhameystiran oo ayaanu ka soo gudbin doonaa. reportka dhameystiran ba marka xalkuna la socon doonaa wixii lagu xalinayay. tan waa tii ugu horeysay ka bilownay. dhammaan waxaan tagi doonaa meelaha dhismayaasha ka socdaan khaasatan afarta kuliyadooda socda. kuliyadda Awbare maanta joogno Ceelweyne Raaso iyo Erar inta waan tagi doonaa. haddii alla idmana waxaanu ku tala jirnaa inaanu gabagabayno sanadkan markaas waliba qaarkood 3 bilood ugu soo horeysa sidoo qorshaha inaan ku gabagabayno sanadkan soo socdana ay bilaabaan shaqadii loo dhisay ama loo dhisay inay bilaabaan baan qoondeynayna haddii la yiraahdo. marka guud ahaan daraasaadkaas iyo indheyntaas ay ahayd si aan u ogaano gudolooyinka iyo ciladuhu meesha ay ka jiraan. waan soo gabagabaynay reportka dhameystiran waan bixin doonaa insha Allah haddii Allah. dhankiisa gudoomiyaha degmada Awbare mudane Cabdiqaadir ayaa sheegay in kuliyaddani ay ku soo kordhin doonto wax badan oo shaqo abuura degmada. marka koowaad marka aad bay u mahadsan yihiin wasiirka iyo tiimkiisa la socda si qoto dheer bay u eegeen. waxaana filaynaa inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan xubnihii macal shaqadan qaatay ee kontraktaradina way wadaan. marka muddo maadaama TVET-kani taagan yahay waxaan uga mahad celinaynaa dhismaha cusub ee dawladda cusub in ay jawaab degdeg ah ay ka bixisay inay hawshan qabsoonto. aad baan uga mahad celinaynaa. waxaana filaynaa in la dhameystiro bilahan soo socda haddii la yiraahdo oo shaqadiisii bilaabo. dhankooda qandaraaslayaasha gacanta ku haya dhismaha kuliyaddan ayaa sheegay in ay dhameystiri doonaan walow ay jiraan caqabado sixir bararku ka mid yahay haddana ay ku guda jiraan sida ugu habboon ay ku dhameystiri karaan kuliyaddan.